subax wanaagsan dhammaantiin asxaabtayda meel kasta aad joogtaan. maanta waa subax ay tahay maalin Arbaca, saacadan oo tahay 6 arooryo. This is my view of my balcony in Sotsaya. xilliga lagu jiro waa ogtihiin xilliga qabaa la gaaray oo ku soo dhacay sanadka cusub 2024. geed weyn baa ku yaala sidatan ayuu joogu yahay. subax kasta markaan tooso waxa ugu horeeya aan sameeyo inaan bisada cuntada siiyo. halkan ayaan ku siiyaa cuntada. imaanaysa think meelaha kale ay degantay goodkaas ay kusoo baxdaa. guriga badanaa ma joogo, macalshimbirahaas yaa cuna. meesha nolol baa ka abuurantay, marka markasta waxaan sameeyaa markaan firaaqada ahay waan u buuxiyaa soo cunaan. halkaasna caadad biyaa oo taala biyo ka caban si aad u arkaysaan biyo ka cabayaan. marka waxaa yimaada different animals meesha jooga. marka waan ka gudbaynaa xilliga introductionka, waxaan u gudbi doonaa insha Allah qaybihii kaleeto. waxaan doonayaa maanta inaan safar galo. safarka inaad la socotaan baan doonayaa oo la daawataan sida lifestyle-ka waddankan uu yahay. marka daawasho waan akhyaarteyda sidaa la wada socotaan. subax kasta markuu waagu i baryo tooso qubaysto shawarkayga qaato salaadayda tukado aan almuuntada aado. waxaan kusoo laabtaa inaan qaato breakfastigayga ma qaadanayo. waxaan sameeyaa multitasking. computerka ayaan la sheekaystaa waxyaabihii waddanka ka dhacay, haddii aan mataqaana aan cryptocurrency waxyaabahaas ka fiirinayo, stock marketyada waxaa ka jira. badanaa waxaan sameeyaa waqti waxaan siiyaa half hour inaan mataqaana adduunka wixii ka dhacay aan la socdo. kadibna waxaan fiiriyaa postiyadeyda warqadaha ii soo dhaca. hadda warqadan oo kaleeto waa insurance iyo guriga noocaasa iyo gaariga shaqayga la dagaalamaysaa. waxyaabahaas oo kaleeto aan iska dhamaystaa. kadib ayaan gurigayga soo diyaariyaa inaan ka baxo oo shaqadeyda ama howlahayga aan dhamaysto. sidaa looga socotaan mar dhow waa baxaynaa. safarkeenu bilaabanaya hadda ayaan dhaqaaqaynaa. noo quraacda hooshida waa isdiyaariyey. marka waxaan leeyahay inakaan haddaan baxaynaa daawasho waan la isdiyaariyo. get ready haddaan kaxay. asxaabteyda waa baxnay, haweygaa qabsanay. waakana haweygii aan sii soconaa toos magaalo la yidhaahdo Limerick aan ku sii daayay. waxay ii jirtaa 2 saacadood. marka hadda ayaan ku sii cararayaa. jidka waxaan rabaa inaan intuso tuulka meelahaan oo isbaaro ku taala oo dibadda iska fadhiisa. haddii aan memberka tahay ticket lacag baa bixinaysa. waddankan canshuuraha oo insuransiga, jidka, tuulka, baarkinka waa dib badan yahay. gaariwadu waddankan ciyaarta jabka kula dagaalamaya. inaad u kala gashaa in aad ciyaal iyo reer aad koranaysid. marka hadda Turkiya u soo socdaa. dibban waa inaad daawataan meesha aan ka galayo. speedkaa ka dhimayaa. airport
kuwan kale asxaabta kale telefoonka dhigay dawaatana waa isxirtay waa markan shaqowman qaybta kaleeto waa kuwa lacagta bixinaya waaye bilkayga bilay usoo dirsadaan bilaa u siiyaa marka safarkaygaan sii wadanayaa insha allahu wixii kaleeto oo aan jidkaa ku arkana waa idiisu duub doona garsigs baan gashtay beerka kaga istaagaday marka waa idinka asxaabta safar wanaagsan iyo rajeeya iyana nabad tago insha allah jidkii waa hayaa dakhal asbaalka waa xirayahay boqolaadka waa saaray ku shiday safar salaam isbaqli doona insha allah wixii الامر كلا كل مجدك وحكا استوى دي صدق بها لسعودة فيديو وصل صدق حتى أخيارتي ذا عن سوق على جدك يعني كسي بحلها جدك وحال ليرا هذا إن سبب ليرا هذا يكفتي وصول مي جدك توصل الامر كو هذه يعني سوق هذه كان وحال ليرا إن سبب ليرا هذا كاسا مسيحيين دو 45 for 30 minutes بلاس ya kadibaan sii qabsanaya marka waa kasii baxay Dublin halkaa Dublin markii laga baxaayo jidkaana sidoo kaleeto waa inay speedka ilaalisaa 100 kilometers per hour inay qodo haddaan kuseeyaa limrik calaamadeeda barnaamij noo soo baxaysaa calaamada cagaaran ee saan balaamiga la yiraahdaa meesha kaasliya marka khayrteedii markaan meesheeda gaaro ayaan insha allah soo doonaa waxaan leeyahay inaayo hadhow hadda ayaan ka baxnay speedkii caatada ahaa speedkii orodka ahaa hadda inoo bilaabmaya 120 la cabsiinaya 120 wixii ka hooseeya socodka bilaabmay markaas orod jidku soo yaraanaya waxay ka dibsan isleeyahay laba jeer hore meeshan imi jidku soo yar dhuubanaya naqabta midigta sanay dhaxmay toos baa soo yaraanaya laakiin jidku soo dhuubanaya noqonaya islim laba haad kaliya noqonaya kadibna marka noqonaysa orodkii waa sii siyaaday baan dhaafaysaa
هذا في لك أنا بتكتب بسرعة دام حوجات تغني رجعتنا كيف بيري هي أو شو عن جد كعبر الخبرة يعني تمام سو يرو معان بابا حيا فرح يرو شحة يا صوت علي عندي كارثة سكي الله ما بنتك الله ما نستاهل عليها كأنه يقولها سماس كبسو نقدر كيس بيدي كبلا بين نحن كيس أنا قاعد نصور بالمراس بلا نصور كنكرر نواوين نفس كيس very dangerous هذا قاعد سكول من بابور تنزل كان نفس باب شغلة ثانية كان شغلة لو ما بعد In 2 kilometers, keep right onto M7 towards Limerick. بكنا والله هذا معاه واحد so fantastic so anyway guys تلفونكم استعمالها تفضلوا باركتين مقالة أي خلاص نلاقي Use the right 2 lanes to keep right onto M7 towards Limerick. alright سلام عليكم ساعدي شيء وكان جدك لو واحد بنقضي صاير هذه 2 lines بنقضي M7 كان قلي 2 line بنقضي أساسا لو ولا قرعة هذا ساعة 1 hour بمسوس علي أي هرسان about around 2 miles, around 1 hour, 1 hour and 1 hour and a half an hour. I believe in Antagoyu, Nabada it 1 hour Bakagini. I think sports very sports. Then all you talk about to go and life here. سفر سيدي gaari weyn baa ku celin kara gaari speed oo sports tayara macaan shaqaalayaashaan ay ku maclaan kan nageenay kan iyo tafuurka ay jecel sports ahayn degnayn dadka sports ka أنا بحسن يا سبيد هنا يا واحد ولا هاي شو بالك له عيب كلا بابنا يا كوا تما يا جيت كاس تما يا عبار بكرة يا كن جيت بلفاست هاي دي من بعدين شو بدونا إسقنا إن شاء الله ما كسوس الله كيس كلام الدوار بعد استكيد أنا أتوقع أنا قال أنا بسهله جرمني سو كراتين so not trips back at the case أصحاب صحيح لك أنت بحار برف عمرضو كثير أنت عارف هالك مراية أنا سنتا بسيطة أنا كا مراية مركب وإذا إيرلام الشيبس وإذا والله لو حاول نقطع نهاية الصومال نهاية أريكا كان فوق
لكن ري ماشي شوغان وكيدو يلو ماشي أري I don't know ما أعرف لكن maybe هو أونلاين كان ولاد جرين waxaan marayaa country side kan marayaa hadeer magaalada banaankeeda duleedka marayaa Dublin waaye halkaas waa green in ilaahay nimceeyo saas waxaan loo beeraa cawskan iyo waxaan ilaahay u soo saaray waxay beertaan iyo waxay wujuudi geliyaan ma roob baa isaga soo dhacay I don't know maybe climate meesha geographic ku yaalo ee caawinaysa weatherka climate change waa jira so hadii utaqaanaa waxaa la yidhaahdo aad magaalada banaankeeda aad ka dhigtid green magaaladu waxay noqonaysaa somehow waa wax jira fiiri magaalooyinka Europeanka oo dhan duleedkooda dhan waa green kuwa roob iyo kuwa roob lahayn waxaa ka jiray Talyaaniga iyo meelaha kaleeto jarmal qayb kamid roob badan bilaada qayb kalena ma lahan wadamadan Austria wadankan la yidhaahdo Faransiiska cagaar baa fadhiya meel kasta magaalooyinka xeebta ku yaala Lyon iyo kaleeto iyo Sicily khiyaarteeda sida arkaysaan tuulkii labaad ma marayaa warcaa way ka shaqaystaan nimanka walaa tuulkii labaad ma marayaa oo aan ka dhex baxayaa waa isfuray waka kii aan magaalada ka gal lahaa waaye oo hadda ku xarunaa sini passport apa sugresa 5 then 6 bakas arigi marka hadda waxaan galayaa Homelandia meeshan waa gobolka meesha laga galo Homelandia still waxa ay dhiman 40 kilometers meelahaas ay dhiman intaan ka gali lahaa Limerick marka jidkaan bilis yahay waxaan rabaa inaad 10 kilometers keep right onto M7 okay waxaan rabaa inaad jidka la barataan jidkuun baan rabaa inaad la barataan duqaata waxaan doonayaa hadda markaan galo barnaamijyo insha Allah yahay marka la socod wanaagsan asxaabteeda meel kasta joogtaan asxaab waa kana magaaladana imi sano magaaladana waxa u jirtaa around 40 kilometers or 25-35 I'm not sure أنا جبت كم كسر لكن المشي ملا كلا كان معهن وحنسوق يا أصحابي أنت إيماني سو مركا برملا عن سوالي بالبنك تشكيل لك وسكسوق يا إن شاء الله شورني أنت شو عني وكاتو وين صوتينا يا كريه هذا السؤال كان استعيدا يحسبوا كلام very old guryaha oo ku yaala dadkan dad taariikhdooda iyo waxa ku dhigsan waaye oo dhaqankooda iyo waxa haysta marka way la socodsiinayaan marka aan tago magaalada dambe ka magaalo ka taaskeemi Homelandia ka xunteenayo restaurant meelahaas aan raadinayna asxaabtan soo boqdan oo u imaana marka sadeena marka cimladuna waa okay maanta roobna ma jiro saa arkaysaan daruur weeyo qoraxdaasna ma jirto waa +5 waaye malahan dhaxansa malahan okay weeyo kayla socda wixii cusub oo kale waan la socodsiinayaa waa ka buurihii elan saasoogi gaariga imika waa laga nasiyey nin kaleeta gaariga wada mabka ku socodnaa
kan buurihiisa saas u geeyey geedo yar baa ku beegan waa kaa sidii tabtii khariif salaada oo kaleeto hadda si fiican u muuqanaysaa buur adugu dhagaxa iyo waxaa dhinacaan ma laha dhinaca kale anigu aan deganahay ingiriis ku dhaweeyaa buuro dhagaxa webiga badda saaran haddan sii soconaa waxaa inoo harsan saac 20 daqiiqo aniguna waa kaa socdaa 140 134 speedko maxaa kaa galay waa highway labada dhinac baabuurta ka marayso dhinaca kaleetana baabuurta kaa maraysa marna waa galayna magaalada markaan galno insha allah ayaan kasoo ahlan wasahlan akhyaarteeda sharafta iyo qaayaha mudan waxaan soo gaaray meesha aan doonayay ayaan hadda soo gaaray gaarigaan wataa safar dheer ayaa ahaa 2 saacadood ayay ugu qaadatay laakiin waa nabad imi alxamdulilah nabad keenay insha allah magaalada ayaan tegayaa oo idin soo duubayaa hadda dana yaraan lahaaban meesha u imi danahayga yaraan dhamaysanayaa insha allah markaan danahayga ka soo dhammaado haddaan kasoo gaarsiin karo idin soo gaarsiinaya insha allah haddii kaletana waqti kale ayay inoo tahay marka sidaas oo dhan akhyaarta waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonnimo waxaan soo gaarnay guntii gabagabada barnaamijkeena saas inoo balan guul iyo gobonnimo bye.